Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qaaliga ah ee ku xiran Somali Business ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta oo uga hadli doono farqiga u dhaxeeya dadka noloshu saaciday ee hantida iyo maalka yeeshay iyo kuwa waayuhu baday faqiirtinimada. Kuwan waa toddobada farqi ee u dhaxeeya dadka kuwa taajiriinta iyo kuwa faqiirka ah. Ma aan qof kastoo taajir ah inuu ka soo jeedo reer hanti leh. Marka su'aashu waxay tahay dad badan oo nolosha ka dhacsana sidee bay ku noqdeen dad hamigoodii ka mira dhaliyay oo hanti iyo maalba yeeshay. Farqiga weyn ee u dhaxeeya dadka hantiilayaasha iyo kuwa lacagtu dhibka ku hayso waxaa ka dareemi kartaa sida ay u fikiraan, wax u qabtaan ama sida adduunku ula muuqdo oo dhammaantood kala duwan. Nambar 7. Dadka hantida leh ma muujiyaan oo ma soo bandhigaan hantidooda. Waxaan filayaa inteena badan inaa wada aragteen aasaasaha Facebook ninka lagu magacaabo Mark Zuckerberg. Waxa lagu yaqaan ayaa ah fanaanadaas oo badanaa xirto. Waxa laga yaabaa inay kula noqoto wax lala yaabo, laakiin ma jirto sabab aad u soo gadato jeans qiimihiisu yahay $1 adoo arkaya mid jooga $10 oo ka tayo sareeyo midka $1,000 ah. Tani waa sirta dadka taajiriinta. Arrintu dhar bas ah kuma koobna. Dadka hantida leh si indha la'aan ah uma daba ordaan fashionka iyo wixii markaas socda. Waxay aaminsan yihiin intaas aysan u fiicnayn xagga kubcinta iyo horumarinta dhaqaalahooda. Halka dadka hantida yar ay mar walba u hami weyn yihiin ama xiiseeyaan inay gataan waxyaalaha laga daba dhacay oo markaas socda, kuwaas oo qiimahoodu aad u sareeyo. Halka kuwa niyadoodu ku jirin inay u muuqdaan ama u labistaan sida dadka taajiriinta ah ay lacagtooda kaydsadaan oo cunto iyo baahiyaha reerkooda ku bixiyaan lacagtii maalayacni lagu qarash garan lahaa. Nambar 6. Dadka taajiriinta ah ayaa maalgashada qalab u muuqda mid qaali ah laakiin caqli ahaan qiimo jaban. Tusaale ahaan mashiinka lagu kariyo kafeega. Badankeena waan jecelnahay kafee. Waxaa laga yaabaa in koobkii kafee ah uu joogo $2 ilaa $5. Aan ka dhigno inuu joogo $3.5. Marka xoogaa xisaab haddaan samayno, maalinka haddaad hal koob iibsato waxaad ka dhigan tahay inaad sanadkii qarash garaysay $1,300 halka mashiinka uu joogo qiyaastii $500. Taasi miyaysan ahayn farqi aad u weyn? Nambar 5. Dadka taajiriinta ah ayaa lacagtooda lacag ka dhaliyo halka dadka faqiirka ah ay u shaqeeyaan lacagtooda. Labada kooxba waxay ku dadaalaan inay lacag ka helaan, laakiin dadka taajiriinta ah waxay og yihiin sida lacagtooda ay ugu shaqayn karto. Ma ku kaydsadaan lacagtooda bangiyada iyo meelaha kale, laakiin si joogto ah ay maalgeliyaan meelaha sida dukaamada, halkaas oo ay lacag badan ka heli karaan. Taasi micnaheedu waa lacag baa lacag dhasha. Dadka faqiirka ah waa isticmaalaan oo ay qarash garayaan lacagtooda oo idil, taasoo xaalad xun oo ay ku faraxsaneen gelisa. Nambar 4. Dadka taajiriinta ah waxay aqoon iyo xeelad u leeyihiin sida loo maareeyo loona isticmaalo hantidooda. Tan ayaa ah sirta ay guulo badan ku gaareen oo wax badan ma qarash garayaan. Dadka hantida yar ayaa aad u qarash garaya lacagtooda oo xisaabtan iyo dabagal kuma sameeyaan hantidooda. Nambar 3. Dadka maalqabeenka ah waxaa u muuqda mar walba fursadaha u bannaan, halka dadka hantida yar ay mar walba u muuqato caqabadaha ka hor dadban. Arrinta kale ee farqiga u dhaxeeya dadkan kala saaraysa ayaa ah sida ay u fikiraan. Dadka maalqabeenka ah ayaa mar walba waxaa u muuqda guul iyo fursado u bannaan, sababtoo ah hamigooda ayaa ah mar walba inay guul gaaraan. Waxay dhabarka u ritaan go'aanada iyo tallaabooyinka ay qaadayaan si ay uga gaaraan hadafkooda. Dadka hantida yar haysta bilowga waxqabadkooda waxaa u muuqanaya caqabadaha ku hor dadban oo markiiba khasaaraha iyo halista kale ee ka imaan karta ayaa indha tira guulaha iyo faa'iidooyinka ay sameyn lahaayeen. Nambar 2. Dadka maalqabeenka ah ayaa diiradda saara waxa ay tahay inay gaaraan oo guulo ah, halka dadka hantida yar ay diiradda saaraan waxa ay tahay inay ka fogaadaan oo iska ilaaliyaan. Dadka hantida leh ayaa u halgama sida caqabadaha soo wajaho ay uga gudbin lahaayeen. Waxay niyadda ku hayaan waxaan dhib loo marin inaan dheef laga keenin. Dadka hantida yar ayaa iska ilaaliya in wax dhib ah soo gaaro oo intay khasaaro geli lahaayeen ay hawsha dhan isaga tagaan oo ka baaqsadaan. Lacagtii ay maalgashi ku sameyn lahaayeen ayay kaydsadaan kadibna si tartiib ah ayay u isticmaalaan. Nambar 1. Dadka maalqabeenka ah ayaa gunta u xirta sidii u wajihi lahaayeen dhibaatooyinka soo wajaho, halka dadka hantida yar ay iska indhatiraan dhibaatooyinka la soo gudboonaado ilaa mar dambe wax laga qaban karin. Tani micnaheedu ma ahan in dadka hantida leh ay iska cabsan inay khasaaro galaan. Ma jiro qof aan naftiisa u cabsan,
laakiin dadka maalqabeenka ah ayaa isku taxallujiyo sidii uga miro dhalin lahaayeen hamigooda. Dadka hantida yar ayaan wax dhib ah isku taxallujin oo rabo wax walba inay dhib la'aan ku helaan. Tan ayaa ka hor istaagayso inay maalqabeen noqdaan. Marka hadda hadalka soo koobo, waxa ka dhigi karo qof taajir ama faqiir ayaa ah habka uu qof walba u fikiro. Marka hadda hamigaadu ma inaad noqotaa taajir mise faqiir? Maxay tahay tillaabooyinka aad taajir ku noqon karto? Jawaabaha su'aalahan oo dhan inoogu soo jawaab commentiga hoose, iyo wixii su'aalo kale oo aad qabtaan waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Mar walba ku xirnaada Somali Business.